بسم الله الرحمن الرحيم داوديال waxaa maantay kula kulnay gudaha akademiyada booliska general Kaahiye abwaan kamid ah abwaanada kooxda Heegan ahna ninkii alifay heestii aan baxday ee loo baxshay badana oo taabanaysay meelo badan oo dhibaato ku ah dhanka maamulka dalkeena oo muujinaysa wadciga iyo waxyaabaha dalka ku cusub ee dadka iyo dalka saameeyay marka abwaanka ayaan marka hore ku bilaabaynaa inuu magaciisa iyo taariikhda fanka soo biray inta badan noo sheego marka abwaanka soo dhawow adoo dadka isbaraya una sheegaya magacaaga iyo goorta aad fanka ku soo birtay aad iyo aad u mahadsantahay Cabdifataax mudana aad iyo aad baa u mahadsantahay anigu fanka waxaan ku soo biray 1980kii kooxda Heegan ee ciidanka booliska Soomaaliyeed fanaaniin badan oo la soo shaqeeyna way joogan qaarna hadda way nool yihiin dadka heesaha maaragtay ku fududaana ma ahayn maadaama nin oo culusna aan ahay marka heeskan hadda badana ahna waa waxaan sameeyay waa ma dhaweyn marka aan sameeyay marka xaalado maaragtay markaas indhaha aan saarayay waxyaabo badan aan goobjoog soo ahaa marka taas ayaa iga keentay markaan arkay hawlo badan iyo maaragtay waxyaabo badan heestu waxaad aragtaan ma xagga lagu sheeray inta lagu sheeray bariba la sheera maalin walba waxba la sheegaya wax go'aan cadna ma u jeedno anoo hadda dawladda hadda socotana ma uma jeedo laakiin hore ayaan soo arkay aad abwaane waxaan rabaa inaan ku weydiiyo su'aal qaybna u galno heesta badana ee aan baxday ugu horeeyay sida la sheegay inta lagu shiray xagga lagu shiray bari baa la shidaa badana shir aan wax tarin badana marka waxaad ku abaartay shirarka badan dawladaha iyo beesha caalamka ee Soomaaliya loogu baaqo ay dawladda ku shirayso goobo kala duwan oo caalamka oo aan waxna ka soo dhalan oo soo bixin markaas wax korrect oo banaanka aan imaanay ay jiraan aad iyo aad waxa kale aad xiiso u lahaa ereyga ah xaggana waa calan intana waa calan mara meel la suri badan ay ku gogoysay san geeslihi aaw calanka shan geeslihi meey waxa ka soo jeeda hadana xaggana waa beel intana waa beel meeqasana beel ay socoto beel wax taraysan male wada jirka ayaa shaqaynaya waxa kale wadana ku sii xigay nabadoon dawladeed badana professional erayga noo fasir nabadoon dawladeed ninka qaaday Cabbaas baa la yiraahdaa bakooradaana kale iyo professional soo qaadana wuxuu leeyahay annagoo beesha see hebel ma ku jirno waa ka baxna dawladda aawi ma la dhihi jiray saas lama dhihi jirin waa nabadoon nin sheegay nin dhan nabadoon sheegay idaacadu ka hadlaya oo leeyahay annagoo beesha reer Bajini ka bajaa waa ka baxnay dawladda waa diidnay waa qaadacnay muxuu qaadici karaa nabadoon hadii beeshii dawladda iskhilaafeen oo dhaxaadiyo dawladnimada weyn ee nagu hogaamiyay oday Soomaaliyeed niya okay waxa aad u xiiso badnaa hadana soolka ahaa gabadha oranaysay حقنا وفرمشيه انتنا وشيء برسانت كان داوى محترم حقنا وحكوا ورد وحيلها حقنا وضد إن عبد التهليل وي حقنا ودكتور انتنا وانجينير سنة كان بروفيسور بدنا بروفيسور محترم بدنا وارون ما يقبل بروفيسور جوكس محل قبلنا فرمشيه كوسوري فرمشيه تجي madaxa xanuuna leedo waxa lagu dhufana cirbad oo wiliga arkin adiga dhameesha ku barartay inta ku barartay maxaa waxas daawaan waxtareen badana farmashiyan waxtareen badana waarun ma correct wax jiro way okay waxa aad u xiiso badnaa soolkaad adiga ku luuqayso xaqana waa dekad intana waa garoon sanadka canshuuruhu badana canshuuran la arkay hadana ma ula jeedaa oran karnaa ereygaas taas waxa waaye arkay ma hayno hadda dawladda hadda joogtaa xoogaa barombo wax la arkaabo laakiin tii wixii badna lama arko برينا اسكبدا برينا قريب وطا منشيبي maxaa oranaysaa marka منشيبي qoryo wada weligay ma arkin adduunka intaan ku noolay hay oo bajaajada daba taagan qoryo wasa war maxaa kartaa ninkan kan canshuurta war islaan ma tahay la ma yahay canshuurtu horta canshuur maxaynu ku macnayn karnaa canshuur waxa weeye waxyaabo
maamul administration oo soo baxay oo dawladeed oo kaabayaasha dhaqaalaha qofkana uu diyaar u yahay asoo raalli inuu baxo halkii qori loola dabo liif weeye markaas waxaa kaloo aad u xiiso badan xaggana qurba joog intana qurba joog sanadkan qurba joog badana xagga horta ereyga xagga ah maxaan ku micnayn karnaa xaggana qurba joog ma dibadday joogaan qurba joog dibaddan waa joogaan waa ka qaylinaya intana waa joogaan gobol kastana waa joogaan xil doom waa markaa annagaa naqaan cilmi oo dadka dalka jooga waxaa u baranaya just speak English I speak English right why now waa howl kale howl kale gudoomiye marka usoo caadi ma waxaa kaloo ayadana aad u xiiso badnaa soolka oranaya xaggaa lagu dilay intaa lagu dhacay sanadkan dembiyadu badan dembiyada ha badnaadaane haddana waa ku daba joognaa badanaa ku darteen ereyga waa ku daba joognaa badanaa marka maxaa ku macnayn karaa waxaa lagu macnayn karaa waxaagii hore oo dawladdii dhexe oo hadda inkastoo dawladda hadda waa midaanaa xoogaa kaabanaysa laakiin kuwa oo wax jiri qof inta maxaa dhacay ninaa lagu dilay hay waa soo baxday intaa soo baxday maxaa inta naagaa lagu dilay inta maxaa ninaa lagu dilay war ma la qabtay maya waa ku daba joognaa waa imaanaysaa waa ku daba joognaa marka waa ku daba joognaa oo amiro dhalayn in la joojiyarana marka waa ku daba joognaa waa mahadsantahay waa abwaan isnaaya oo ka mid ah kooxda heega oo ah abwaankii alifay ama curiyey heesta loogu magac daray badana oo baryahan dambe aan baxday abwaane waa mahadsan tahay soo booqatay maantana maxaa kula dardaarmayd ummadda waxaan kula dardaarmahayaa ummadda Soomaaliyeed dadka samaynhayo sida nin hadda magaciisa maarnaalay magac falso oo lagu soo qoray heeskii lagu soo qoray dadka adeegsanaya internetka akhlaaqda iyo asluubta iyo ansaxa inay ilaaliyaan oo heeskii adiga aad samaysaan ninka lagu qoray waxay raba isaga samaystay waxay rabaan ha iska sameeyaan laakiin taas waxaan dhihi lahaa wasaaradda boostada isgaarsiinta inay akhlaaq u yeelaan waxaan ka codsanayaa weliba waan ka codsanayaa inay akhlaaq u yeelaan qolada youtube-ka iyo internetka in protocol loo sameeyo maya taas waxaan ku xaqiijinaynaa waxaan goobjoog u ahayn heesta meesha ku samaysay oo aad ku xifdisiinaysay fanaaniinta maasha allah waxaan kaloo goobjoog u ahayn bartii lagu duubay maasha allah waxaan kaloo goobjoog u ahayn dadka qaaday oo aan naqaano hadirtaan la heli karo fanaaniinta qaaday heesta waana heesta abwaanka sida dhabta u leh oo alifay heestaas waxaan ku leenahay badan waa mahadsantahay dib u kulmi doono waxaan idinkaga tegaynaa sanadkan cashuru badanaa عشوران لا أركي بدنا سيرنا واحترم بدنا لينا واحترم بدنا نبضون تولدين بدنا مرمل سوري بدنا حليران قبلت بدنا دعوة واحترم بدنا فنان سنة كم بدنا joog xildoon badana waa ku daba joognaa badana cashuuraan la arkayn badana cashuuraan la arkayn badana